ما أقول قاضي إنه وحيدنا وحنو أرنا أبو كيري علي وكوين يده أو أنا ما دجالة أوقبها إنه يكسر لحنيسه سادرتين وحنو شيءنا ساعدنا لقى بالله أورينا وشيءنا أنا قضياش دان هاي دولة حرير كوا أوتشرني أفعد ما كلنا حرير لبلهن نما حكمته شغالكم بلهن وحن أوقد جينا inay joojiso dagaalka inay ku xasuuqdo ay rabto caruurta iyo naagaha iyo waxaan ka digaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka Gadow khaas ahaan doono in dawladdu ay nabadgelyadana gacan ugu siiso oo aanay nabadgelyadana naga qaadin oo waxa aan qoonsanay ay naga dejiso intaasaan ka digaynaa kana codsanaynaa waliba codsi baan ugu diraynaa annaga oo wax kasta qabno waxaan ka codsanaynaa dawladda in ay naga joojiso waxyaalaha degmahan annaga na dhibay daraya baarbeer wuxuu ma ka soo garbaarey ma ka soo luuqu soo dhiga dowlad kulahaya waxaan u sheegaynaa hal gabarayda naga nooshay farmaajo sarkas ku guulaysan caalamka u sheegaynaa gobolka Gadow u sheegaynaa duqowda wiilasha soo daadgurinayo gobolka Gadow soo daadgurinayo u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa dal ku reebasha caalamka waxaan u sheegaynaa darisyada waxaan u sheegaynaa in ninkii wax garanaya ama wax maqlaya u sheegaynaa farmaajo hadduu gada ku soo qor ciidamada baardeer iyo garbaanay uu ka soo gabar intay naga nooshay ayagu dib u noqon mahayaan annaga noolba ma rabnaba sadarteed deegaankani waa nabadgelyo uma baahna khalkhal uma baahna fadqallo uma baahno wax mujtamaca iyo dadka qabaa'ilada wada degan oo wada noolaanshaha ay ka dhaxayso khalkhal ku abuurayo colaad ku abuurayo waqti xaadirkan waxaan dareemaynaa oo dadka deegaanka iyo bulshada mujtamaca nawaaxiga ku nool ay dareemayaan khalkhal iyo colaad iyo qalalaaso ka imaaday meeshan laga filanayo ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya Bashiir Xasan Cabdullaahi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay isdifaacayaan haddii ay dhacdo in dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal ku soo qaado degmada Doolow oo muddo badan nabad ahayd maanta in la yiraaho ciidan baa intii la keeno luuq in lagu qabanayo luuq dhexdeeda luuq lagu qabanayo Doolow lagu qabanayo bilax lagu qabanayo ma shabaab lagu dir degmooyinka gobolka Gadow meel degmo u gudbi karto degmo u gudbi karto garbaarey buurnu soo gudbi karaan buurnu way baarnay soo gudbi karaan ciidamadii loo tababaray oo la rabay deegaanka inay ka shaqeeyaan oo annaka wiilashanadii ahaa oo u dhashay gobolka naqaano hebel aan leenahay oo lambarooda ahay waxa maanta la iska horkeenayo oo la rabo inay xabad isku ridaan noocaas marka haday dawladnimo noqonayso wax la yaabo wax la qaadan karo ma haday ciidamo cirka laga soo daadinayo haday dhulka laga soo daadinayo saacad gudahood haday la buufinayo dadka shacab ciidan odayaal dhalinyaro culimo oo diin hooyooyin maamul intaba waa iska taagay waa isdifaacayna wixii si xun u socdo waa iska celeynayna waxay nolol mid yihiin shabaab waxaan baaq dheer u dirayaa guud ahaan gobolka Gadow iyo gaar ahaan caalamka iyo dawladaha dariska inta meesha waxa ka soo socota foolxumo ay hor kacayso dawladda federaalka waxa ka imaado dawladda federaalka la weydiin ayaguna ha ogaadeen intaas dadka gobolka Gadow waxaan leeyahay wiilashiina la isku diraayo odayaashii baatiin hooyooyinkii baatiin wiilashiina la isku horkeenay